السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داودي الملك استوى ذا دونك كجوكتان هل كان نقد داونيسان وبرت يوتيوب كي ولي بفيسبوك أن كل إنها برهان جنال أو سعودة برنامج كأننا واحد كود داون دونتان نينكي ديلي أطورها بدأ أول هلي حق حساسية أيان إذن كجهينا لعددان أيا وحى أيضك الصوماليين كبرتي ولا عادوا حق بدن هذا بواكما شخصي جاس محوس كودلي برنامج كأننا أيا كود داون دونتان وحى حلي لوجود لي magaalada caasimada ah ee Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan Allah u naxariista atooraha badda dilka atooraha badda ayaa inta badan waxa aad uga hadlay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada caasimada ah ee Muqdisho xilliga uu dilka dhacayna dhowr saac ka hor waxa uu afur ku qaybinayay sida aad ku daawan doontaan barnaamijkeena qaybtiisa dambe dad masaakiin ah laakiin hadda waxa soo baxay warar xasaasi ah oo ku saabsan qaabkii loo dilay ka hor inta aan idin sheegin shakhsiga dilay iyo sababta uu u dilay atooraha badda inta uusan dhiman ka hor waxa uu galay dagaal waxa ku taalay ilaa 6 toorey oo qeybaha jirkiisa oo idin lagu dhuftay kadibna dhowr xaba ayaa waxa looga garaacay madaxa sidaas darteedna uu u dhintay xogta aan helayna atooraha badda ayaa waxa ay sheegaysaa in uu sababsaday gacanta saaxiibkiisii ay hal meel ku soo wada koreen dhowrkii bilo ugu dambeeyana ay ka wada shaqeynayeen inay caawiyaan dadka masaakiinta ah haddaba waa kuma shakhsigaas muxuu ku dilay ninka dilay atooraha badda waa nin saaxiibkiis ah ay soo wada koreen sida aan idin sheegayba waxa ay isku qabsadeen lacag $60,000 oo loo soo diray dad walaalo ah oo ku dhiban magaalada caasimada ah ee Muqdisho ninkan dilay atooraha badda ayaa waxa lagu magacaabaa Shucayb Muran kadib atooraha badda ayaa Shucayb u sheegay in lacagta isaga loo soo diray oo isaga uu u qaybinayo laakiin Shucayb ayaa ku yiri aniga qaybtayda isii waxaan doono ana ka sameynaya ama waa qaybinaya ama waa cunaya kadib gacanka hadal dhex maray sidaas ayuu Shucayb waxa uu ugu dhuftay atooraha badda dhowr toorey iyo waliba 3 xabadood halkaasina waxa ku geeriyooday atooraha badda ilaa ay hadda ma jirto warar rasmi ah oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in ninkan atooraha badda dilay la soo qabto laakiin ila xoogaal ah ayaa noo xaqiijiyay in Shucayb hadeertaan uu ka cararay magaalada caasimada ah ee Muqdisho oo ku dhuumaaleysanayo deegaanada u dhow magaalada haddaba Ilaahay waxaan uga baryeynaa atooraha badda in siiyo cadaalad Ilaahay ha u naxariisto atooraha badda wixii wara oo ku soo kordhana waxaad ka daawan doontaan barnaamijyadeena dambe haddaba waa kana atooraha badda inta uusan dhiman ka hor 2 saacadood dadka masaakiinta ah ee Muqdisho ku sugan u qaybinayay afur آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وليال ودرين كتير مانتا waxaan soo gaarsiiyay walaalayaal Saniina sakadooda ama fikrada sida loo yaqaan alxamdulillah rabbil caalamiin meel kale ay ka bixinayaan maanta malahan walaalaha kale waxa ka codsanayna inay soo gaarsiiyaan ku daydaan walaalaha kale meel walba ay joogaan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa kuwa wax baxsaday khayr fara badan in Ilaahay abaalkooda ka mariyo oo Ilaahay abaalkooda uga dhigo khayrka ay jecel yihiin iyo wax kasta ay jecel yihiin marka ajri xasanaad alla soo koobi karna Allah ka siiyo ajri xasanaad alla soo koobi karna Allah ka siiyo ajri xasanaad alla soo koobi karna Allah ka siiyo walaalaha muxsiniinta wax soo dhigtay waxaan leenahay ajri xasanaad alla soo koobi karna Allah ka siiyo kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inay ku daydaan oo ay soo gaarsiiyaan walaalahooda maamooyinkooda masaakiinta ah oo runtii laamiyada confunction u fadhiyay maanta qofkii wax garada ama way araga ama aragti dheer leh oo dareemi kara halka lagu bixin karo iyo qaabka loo bixiyo insha Allah taala
waxaan u rajeynaynaa haddii la yidhaahdo intii wax baxsatay oo muxsiniina in ajri xasanaad ilaahay uu ka siiyo inta kalena waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaad ku dayataan walaalaha qalidii adinkana waxay leeyahay muuqaalkan sheergareey walaalaha Soomaaliyeed gaarsiin sida u jeedin maanta hooyooyinka Soomaaliyeed khayr Allah siiyo walaalaha Soomaaliyeed muxsiniina sidii maartay waxsalay oo keenay walaalo kale tan way jiraan oo horay si u jirtay marka insha Allah walaalaha Soomaaliyeed muuqaalkan noo sheergareey insha Allah ay ka dhamaatay si jamacada u ficnaa maanta waxaan macnaha awal waqti ku jiray dadka maartay muxsiniinta oo waxa soo dhigtay laakiin maanta ma jirin xalay ma jirin حالي واحد مصري طلبات ساكي وبحب بكارة عادي بكارة أنت وكرناي وكبا أسوق يبيناي وأنا كنت وقتي مركا أفريقيا يوم مارتي وحكوتها هني مارتي ويوم كان سنياشة أو بين وقتي أنا وقتي سيدا استرتي الولالي محسنين هاي أنا كفورة كحسوسة ويدي وحمسوسة أنا كفورة كحسوسة أنت كلا كنا هرالي مقرالة هرالي نقرة إن شاء الله مين يجوبي تبا تحرعي محسنين يا قرالي دينا فيرنا يا وقرية بعد إن شاء الله يدوسوا تعلم سلايدا قلبي لقرب الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وبعد ولا ليال سيدا أوتين حكجنا بالبركيسان وولوبة قليلة maalmihii ugu dambeeyay sidaan dhigi karno waa maalmihii laylatul qadriga insha Allah taala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nawaafajiyo qof kasta oo muxsin ah oo baxsaday waxaan rajeynaa insha Allah taala inuu ilaahay waafajiyo laylatul qadri inta kale waxaan rajeynaa insha Allah taala inuu ilaahay nasiibkooda ka dhigo walaal kasta oo muxsin ah meel walba jooga ama hore wax u baxsaday ama hadda jaclina wax baxsaday waxaan ka codsanay waxaan ugu ducaynaynaa si ilaahay يعني واجبات كيس وكمرسيو إلهي سبحانه وتعالى سيدا أبنا وحيري دولك السجون حريص عن نجاح كيسون حريصنا إن شاء الله وحنا كم تهاي الصدقة أو جدان هاي كم تهاي وشيء قليل وقت لما دب سعوديو ولو ذكرنا يا وحي تهاي الصدقة وعدنا وحلو جرا بالرمضان وبالبركة marka waxaan rajeynaa insha Allah taala in ilaahay abaalkooda uu ka mariyo waxaan rajeynaa insha Allah taala ajri xasanaad la soo koobi karin Allah ka siiyo walaalaha muxsiniinta dhammaan meel walba joogaan wax baxsaday kuwa kalena waxaan rajeynaa insha Allah taala in wax baxsan doonaan oo ay u soo gurmadi doonaan hooyooyinka masaakiinta ورنتي كنخش لمال وفديو لاميد وفديو حرجينا إن شاء الله تعالى مال كلا وما أنت وحلو بحين كرو يعني دفي قليل واي الماموين كان لو مكين قرب لو مكين قبيل لو مكين وحبا وحلو كان وإلهي درتيس يو دم قشاء أنك دحيا من شيء يعني ودم قاني بدنا نسوء أروريني أنا farka laga foolma dhaq kartaa leeyahay waxaan jeclaysanay inaan media soo istaagno oo aan qeyl dhaamino oo wajiyadeeni oo fiiqno oo aan wax walba codkeeni iyo waxa lahaa in aan isku kaashano alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay wuu nagu guuleysiyay walaalo far badan aan ajri xasanaad ilaahay ka siin doona insha Allah taala wajinina oo ka qayb qaatay runtii afurintii أولاً أفرنتي أيضا أولئك جري أفرنتي وولي بدب عن الله نقننا وولي هالمالين إنسان قادر الحمد لله رب العالمين هذه ما دسكله هذا وحقصه حكت عيد سنتي عرفتاس أي دلين أو غانتا
oo rajada oo agoonta ilaahayna wuu nagu guuleysay alxamdulilah rabbilcaalamiin inkastoo ay wax yar iska dhiman wax iska dhiman iska yar yihiin waxa haddana walaal muxsiniin fara badan ay yacni fikradan ay ka qayb qaadanayaan qaarkoodna waxaan ka codsanaynaa inta dhiman ay jecel inay soo dhiibtaan inay jaaniskan ay ka faa'iidaystaan maanta ay haystaan waayo hooyooyinkan waa hooyooyin waa hooyooyinkeeni hooyadan inay ciido waa jeceshahay caruurtaadan inay ciidaan waa jeceshahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaad ka qayb qaadan doontaan insha allahu tacaala dhammaan walaalaha muxsiniinta ayna daawanaya waxaan ka codsanaynaa inay muuqaalkan sheergareeyaan oo ilaahay dartiisa ay ku sheergareeyaan ay ka codsadeena maanta haddii aad wax baxsato oo aad wax sadaqaysato horta cid kasta oo ilaahay jaanis buu siinaya oo wax ku sadaqaysto